السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مصطفى أد وجماعة سيادي كلماتك هاي إمارتين وتذكر قيب ليسين سمنار كان مانتا أد بانت كجماعة علينا ورالك يسوي الشيء هو أنا تخصص كي وحوي صحافة الصومالية جارحان وحنفيرشة دور كي كعيار خلافاتكم أنت بدل مركان فيش ترساش مكان بلاوس وأنا فيرسة يعني وحلو وحي لقى قري معلومات برنامج كاتب تدقنا وحكي بارتي marka waxaan fiirshay oo aan arkay in Somali media sideeda baan wax badan lagu qoray laakiin wixii laga qoray ay ku soo kooban yihiin doorkee bay saxaafadda ka qaadan kartaa peace building waxay dhahaan waa nabadeynta ay dad isu keeninta qaar baa wuxuu ahaa waxay wax ka diyaariyaan markii hadartaan rabaan tababar oo kale inay sameeyaan BBC Media Action wax badan ka sameeyay internews ku aan wax badan ka sameeyay laakiin mar walba way soo koobaan waxa laga yaabaa ma region specific inuu yahay oo Puntland kaliya oo kala camal wax soo qaadanaya ama Muqdisho kaliya wax soo qaadanaya ama Hargeysa bisi soo qaadanaya ama waxay fiirinayaan waxa thematics la dhaho marka waxay fiirinayaan peace and conflict resolutions de loo gaari kara so aniga marka waxaan isleeyahay waxa loo baahan yahay in koow horta la sahmiyo jawiga saxaafadda Soomaaliyeed muxuu yahay oo overview waxa la dhaho sameeyo qaybaha ka kala kooban yihiin muxuuna mid walba ku takhasusaa so taasaan ku bilaabo shaandhayntii markaan bilaaba marka waxaan arkay in saxaafadda qurba joogta ah ay tira ahaan iyo tay ahaanba ka badan yihiin marka muqdisho dhowr jana usoo noqnoqonaya ilaa from 2011 ilaa 2013 sanadkiiba ugu yaraan 2-3 shil waa imaanay intaas oo dhan marka waxaan fiirinayay saxaafadda qurba joogta yani inta xad gaarsiinteeda ay la eg tahay waayo galbeedkii meel walba ka gaaraan laakiin haddana waxaan arkay in halkan lagu sameeyo yani waxaan echo chamber ay dhahaan Soomaaliya arkin waa BBC doo kale idaacado badan oo local oo maxalliya ba haddana sii baahiya marka taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay in ayagoo qurba joogaan ay haystaan airwaves oo ay ku baahiyaan wararkooda dhulkiina ay sidoo kale sida kuwa maxalliga ay u baahinayaan ay kan u baahiyaan marka taas waxay keenaysaa double impact inay yeeshaan marka takhasuskayga go'aankayga aan doortay halka ku takhasuso halkaasay ka imaatay waxa sidoo kale si dheer markii la fiirsho dhinaca saxaafadda qurba joogta ama Soomaali kaliya ma aha yani qurba joog kasta saxaafadda ay aasaasaan alaaba waxa laga hadlaa sida yani dhinaca wanaagsan waxay dhahaan positive image basoo marka waxay u fursadayaan dadkii qurba joogta inay luqadooda war ku helaan in ay ayaka yani ay community ahaan meel ay hiigsadaan oo wax ka dhageystaan oo ay kala socdaan dhulkii oo wixii ka socda inay haystaan luqadoodii wax ay meel aysan ku lumin oo kayd u ah inay haystaan waxaas inta badan wax laga qoraa laakiin doorka ay ka qaataan xiriirkan ay fursadeynayaan oo isku xirayaan community-ga qurba joogta ah iyo dhulkii doorkaas ay ka qaadanayaan yani xiriirkaas muxuu soo kordhiyay taasaan waxba laga qorin marka waxaan dhahnay taasaa takhasuskay ka dhiganaya PhD-gan waxaan marayna technology socotay waxa you have to pick meel oo adig original ah oo aad la dhihi karo waxaas wax hore wax looga qoray ma aha sababta PhD ugu baasaysin sideedaba waxa weey waana cilmi cusub soo kordhisaa marka dhinacaas markaan fiirshan arkay inaan waxba laga qorin aan doortay aan arintaas ay noqoto cilmiga cusub aan soo kordhinayo طيب marka waxaan book marka wax badan buu ka hadlay thesis-ka 2015 kan dhameeyay book ahaanina u bedeshidna waa shaqo kale marka adii 2 sano camal waxay ugu qaadatay inaan aan book u bedelo insha Allah khamiistan soo bixi doono bookgaas marka waxaan rabay inaan 4 qodob ugu muhiimsan aan isdhahay idinka dambe ugu jirtaa fahamkeeda inaan idin iclaamiyo kabacdina markaas discussion-ka inta kale ay ku soo baxaan insha Allah afartaas qodob marka waxa weey horta marka hore intaan laga hadlinin saxaafadda qurba joogta dadkii aasaasay oo community ah inaan ku bilaawno ay marka context-keeda aan sharaxno waxyaabaha inta badan lagu amaano Soomaalida qurba joogtaan waxa weeye arrimaha la dhaho doorka ay ka ciyaaraan gargaarka aadamaha horumarinta taasna inaan ka hadalno qodobka saddexaad marka waxa weeye diasporic media sidiisaba inaan asagana fahmad ka bixino kabacdi markaas gunaanadkan waxa rabaa intaas oo dhan aan isku keeno aan ka hadalno haddaba doorka ay ka qaadanayaan xiriirkan ay isku keenayaan Soomaalida qurba joogta iyo arrimaha ka socda dhulkoodii hooyo inaan markaas aan hadalkay ku soo gunaanadaan rabaa okay
Soomaalida qubba joogtana waxaan u maleynayaa intii badan waa la socotiin dagaaladii markay dhaceen inkastoo kuwa badan oo yani ka hor baxayna ay jiraan laakiin badankood especially kuwii Europe iyo Mareykanka iyo galay markii ay dagaaladii iskaashinkoodii ay dhaceen bay baxeen waxayna ku badan yihiin marka waa Europe, North America, Australia iyo New Zealand iyo kuwa kale oo ay kan Middle East ka jooga waxaana lagu qiyaasaa tir ahaan inay milyan iyo bar camal ay gaarayaan markii la fiirsho Europe ahaan waxay ku badan yihiin Ingiriiska Mareykankana kuwa badan oo kale way joogaan aniga Ingiriiska maadaama aan deganahay waxaan doortay inaan si gaar ah u fiirsho baaritaanka ayaan ku soo koobo Soomaalida qofka joogta Ingiriiska ku soo Soomaalida marka maadaama dad qasab wadankoodii uga baxay ee ahaayeen oo aysan dooran hadda markii loo barbar dhigo Asian community oo kale camal waa dad doortay wadankooda waa nabdoon yahay wax yani ka ceyrinaya ma jirin laakiin dad doortay bay ahaayeen in ay fursad dhaqaalaha ahaato fursad shaqo ahaato inay ka tagaan ay aadaan wadamada kale laakiin Soomaalida maadaama qasab ay yani dagaalo awgeed ay uga tageen waxa keenaysa inay mar walba wadankoodii ay wadnaha ku hayaan markuu waxa wixii waro soo baxa wixii idaacad laga sheegay mar walba waxa dhagtay u taagayaan dad salkoodu yani dhulka si fiican u fadhiyo ma aha boorsadana mar walba oo xirxiranta marka aragto qofka Soomaaliga waxa laga yaabaa 20 sano inay la degan yihiin laakiin agagaarkooda waxa ka socdaysan ka warhayn laakiin waxay kaaga waramaysaa dhulkii hooyo iyo tuulada ay ka imaatay waxay uga warhaysaa yani maalin wixii ka socday marka waa dad Soomaaliya yani aad ugu weyn tahay mar walbana la socdo saxaafadda Soomaaliyeed halkaas laga aasaasay oo qofka joogtaan waxa u maleynayaa sababtay u tirabateen inay tahay baahidaas awgeed oo ay isku dayayaan inay kaafiyaan waxay marka xiriirkaas sokeeya oo qotada dheer waxaan u maleynayaa wuxuu u kala qaybsamaa dhowr qodob mid waxa weey in ayakan ay leeyihiin family iyo ehlo badan oo yani wadankii wali jooga oo taas marka ay sababayso inay xiriirku ay la yeeshaan waxa taa marka sii dheer in ay intooda badan ay halkaan ay ku leeyihiin oo kala businessyo iskoolle ay ka aasaaseen ama isbitaalle ay ka aasaaseen iyo dhaqaalihii ay ku taakuleynayeen familiadoodii iyo eheladoodii marka waxaas waxa loo yaqaan transnational practices Soomaalida waxa lagu tilmaamaa inay yihiin dadka ugu dhaqaale dirid badan marka ha ahaato waa direct iyo indirect investment so waa dhaqaalihii ay ama $50 $100 ay ku saacidayeen familkooda iyo dadka ku heeraarsan familkaas oo ka faa'iideysanayo dhaqaalaha soo galaayo familkaas sidoo kale local economy-ga markaas aad ka faa'iideysan qofkii lacagta loo diray isbitaalkii isticmaalaya dukaankii buu isticmaalaya iskoolaadkii bay carruurtooda tirsanaya isticmaal marka waxa weey waa domino effect bay yeelanaysaa dhaqaalahaas ay soo diraan oo local community sidaas ay nooga qayb qaadanayaan waxa taas marka sii dheer haddii mashruuc horumarin uu jiro kala camal inay ka qayb qaataan dhaqaalahoodii iyo xoogooda bay la soo noqdaan iyo waxaan la dhaho social remittances marka waa kuwii la soo noqday fikradoodii skillskoodii khibradoodii imaaday oo halkaan taa wax ugu soo kordhiyay marka dhaqaalahaysaan laakiin siyaabo kala duwan bay isku dayayaan inay uga qayb qaataan horumarinta wadanka waxaas oo dhan markii la isku geegeeyo waxaa la arkay in markii wadanka dhaqaalaha soo galo GDP waxa loo yaqaan markii 3 meelood meel loo qaybiyo in diaspora contribution-keeda ay qayb tahay marka waa yani waa huge contribution way oo wadamada kale markii loo fiirsho diasporadooda si ay uga qayb qaataan ay Soomaalidu wax badan ka horumarsan tahay okay waxyaabahaas marka xiriirkaas oo dhan in yani go'aanka ay gaarayaan meesha wax ka horumarinaya meesha dhaqaale gelinaya meesha iskool ka furay waxaas oo dhan waxa inta badan fursadeeya muuqaalada ama wararka ama waxyaabaha website-yada ka akhriyaan marka diaspora media wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa xiriirintaas oo community-ga ay ku xiriirinayo Soomaaliya iyo ka qayb qaadashadooda marka go'aamada ay qaadanayaan meelaha ay ka kala qayb qaataan inta badan waxay dadku ku tilmaamayaan waxaan ka arkay TV hebel ama barnaamij hebel waxaan dartaa xasuustaa markii abaarihii hadda maan abaarihii ka horreeyay 2011 markii dhacayeen data collection-kayga wuxuu socday 2012
dadka inta badan markaan la sheekaystaan ku dhaw maxay ahaayeen adiga waxyaabaad ka qayb qaadato horumarka ka mid ah mid walba wuxuu ku salaynaya oo barnaamijkii cagma dhigaan waxaan arkay haas oo jid waxaas waxa barnaamij ka sameeyay meel hebel laga sameeyay markiiba waxaan damcay markii inaan ka qayb qaato qof kale wuxuu ku leeyahay waxaan arkay in hooyooyin isku imaadayo hagbadooda inta isku keeneen marba qof loo dhiibayo business uu bilaabay tii baan rabay inaan ka qayb qaato marka barnaamijkaas waxaan ka arkay website hebel oo marka waa arkaysa saxaafadda inay yacni xiriir sokeeyo oo maxaa dadka fahmad badan uga soo kordhinayo sida ay rabaan inay uga qayb qaataan inuu dad badan waxaa jira xataa ka helay halkaas hele ay isweysanaayeen oo dad barnaamijyo badan oo tabiya familada kala maqan oo ama kala duruufaha ay kala kaxaysay oo kale inay ishelaan oo yani qofkaas ay ka maqleen hadalkooda ama iclaamintooda ay ka maqleen saxaafadda marka waxyaabo badan buu xiriirkaas oo wanaagsan buu soo kordhiyaa waxaa laakiin taas barbar socota oo aniga aan markaas aan markii dambe aan go'aansaday inaan si fiican aan u sii fiirsho waa in ay siday u soo gudbinayaan arrimaha ku saabsan yani gargaarka aadamaha iyo horumarinta inay sidoo kale waxyaabihii sababay khilaafaadka Soomaaliya haddeertadaana weli qayb ka ah hurinta some of yani conflict ka jira inay sidoo kale asagana ay soo gudbinayaan marka waxaa ka mid ah khilaafaadka qabiileed waxaa ka mid ah khilaafaadka diimeed waxaa ka mid ah khilaafaadka aragtiyeed ama kii siyaasadeed waxaasoo dhan bay u soo gudbinayaan marka waxaa arkaysaa diasporadii yani wadankii ayagoo ka maqan bay haddana waxay isku dagaalsan yihiin waxyaabo ayag aan yani haddaad si xaqiiqan u fiirisa aan qusayn lahayn laakiin maadaama xiriirkii uu yahay so close ba dadka yani wixii isla markii buu gaarayaa wuu taabanayaa dad marka waxaa laga yaabaa masaajidka isla aadayo daris ahaayo isku meel ka wada cuntaynaya in ayagoo war isla dhagaysanaya labadooda beelood ay isqabteen meeshii ayaga ay ku dagaaleen oo halkaas ku kala go'ay hadda waa arrin ka dhacday 1,000 kilomitir 2,000 kilomitir ka meel ka oo aan yani noloshoodii saameyn weyn aan u baahnayn inay ku yeelato marka waxyaabahaasna yani saxaafadda qurbo joogtana way soo kordhiyaan so ani marka waxaan fiirshay sidee bay marka yani saameynta ugu weyn maxay yihiin oo khilaafaadkan sababa ilaa waxaan baaritaanka waxaan u kala qaybiyay 3 meelood mid oo ah aan fiirinayo saxaafadda contentkeeda waa inaad warbixinadii dhageysatid qoraalladii aad akhrisatid website-yada oo dhan adii ilaa 748 websites baan baaray oo shaandheeyo oo fiirsho akhriyay sidoo kale markaan sameynay TV-da aad bay uga soo bateen umaleeyo laakiin markaas 10 bay ahaayeen 10kaas ay markii aan dhageysto fiirsho mid walba aan ka qaato notes iyo dadkii audience-ka ahaa marka inaan ayakan aan aragtidooda aan qeexo sidee u arkaan barnaamijyadan wariyaasha marka soo saaray sababtee baad u doorateen inaad qaabkan oo warkan aad u dhigteen ama u matashiin maxaad u dooranaysiin midkaan oo midna aad u reebaysiin waxyaabahaas oo dhan ayagana inaan ka soo gaarnaan rabay halkaas marka waxaa iiga soo baxay inay jiraan 3 siyaabadood oo khilaafaadka ay u horayaan mid waxa weeye waxaan la dhaho non recognition marka dadkii already society-ga ka dhex ahaa dad aan ka muuqanin oo dan gaar ah la siinin yani aan dhagjal loo siinin oo isku dayin inay ka mid noqdaan bulshada oo dadkaas marka ama dumarka ahaada ama dhalinyarada ahaadaan laakiin waxa sii dheer dadka saboolka ah dadka disabled-ka ah dadka la hayb sooco waxaasoo dhan saxaafadda door ma siisa inay kaalin ka qaataan barnaamijyadooda waxaa marka qaybta labaad ama sida kale ay ayakan khilaafaadku u sii waraan waxaa ka mid ah waxaan la dhaho us versus them environment marka dadka la kala soocayo la dhaho adiga groupkaana tahay kuwaas iska ilaali kuwaana loo tagaayo la dhahay may dadkaas anaga mamnuuc maahan naga leexi waa kala qaybinta dadka midda saddexaadna waxaa weeye politics of mobilization waxa la dhaho marka waa dadkiioo lagu dhiirigelinayo in ay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan oo ama ha ahaato fundraising loo sameeyo lacagta loo aruuriyo lagu taakulaynayo qabiil dagaal u galayo kala camal asoo kale waa mobilization inta hool iskugu imaado waxaa la dhaho waxaan u baahanahay qabiilkeena inaan iska celino meel heblaayo waxaan dadkaas aan ka soo istaagno marka lacag aan u aruun lacagta la aruurinay hadhowtii hub baa lagu gadanaya tiyaa lagu dagaaltagay marka waa mobilization way waa dhaqdhaqaaq way it's not just kala qaybin oo dhehayso qofkaas aan iska ilaalin laakiin actively waxaad uga qayb qaadanaysaa in aad
dagaalkii aad qayb ka noqotay saddexdaas meelood markii la isku daro waxay noqonaysaa marka conflict recreation waxaan u bixiyay soo waa khilaafaadkii ka socday dhulka baa dib waxaa loogu abuurayaa wadankii ahaa diaspora qurbihii ay joogeen taas marka waxay sababaysaa ilaa maadaama xiriirkii uu yahay xiriir back and forth ah cycle bay noqonaya marka oo isla wareeg oo soo wareeganaysa mar conflict-kii yaa jira way soo qaadeen halkaan halkeena kuwaana way kasii qaybtay marka waa cycle of conflict recreation ay noqonaysaa waxaana aaminsanahay taas ilaa la kala jaro yani oo la joojiyo ama si uu loo maareeyo inaan conflictkaas aysan noqonin wax dibadda laga keeno khilaafaadka halkaan ka socdo ilan hadda markaa isku barbardhigtay waddanka horumar badan buu samaynayaa dadkii waxay diyaar u yihiin inay dowlad wanaag ka qayb qaataan haddii marka aad haysatid diaspora ayadana sii hurinayso wixii aad isku dayaysay aniga inaad kasoo baxdeen waxay noqonaysaa ciribtir ma ogtahay dad yani wax reebay marka waxaan aaminsanahay waxaan buuggayga recommendation waa inaan baxsan marka waxyaabahan soo recommend garaynaya waxay tahay in fiiro gaara la siiyo doorka khilaafaadka ay ka qayb qaadanayaan diasporada iyo diasporic mediada taas marka haddii la meeleeyo waxaa markaas fursad loo helaya inay isla saan qaadaan horumarkii waddanka ka socday dowlad wanaaggii waddanka ka socday iyo diasporadii oo aqoonsatay in ay door ka ciyaarayaan dib u celinta waddanka oo ayakana markaas insha Allah ay noqon karaan kuwa yani qayb ka qaato horumarinteeda so marka micnaheedu taas waxa weeye in ka qayb qaadasho doorka ama yani ka qayb qaadashadooda doorka yani kaalinta ay ka ciyaarayaan ay tahay mid aan yani hal wada ahayn oo dadka inta badan waxay fiirshaan oo diaspora mar walba remittance soo diraan way wanaagsan yihiin xataa siyaasiyiinteen iyo noqdeen hadda waa madaxweynihii iyo waxay isku darsadeen ra'iisul wasaarihii iyo wuxuu ahayd gudoomiyihii baarlamaanka marka so yani inta badan halkaas la fiirsho wax wanaag ay sameeyaan marka wayna jirtaa taas laakiin waxaa sidoo kale u baahan inaan fiiro gaara siino in kaalintoodana ay noqon karto kaalin regressive ah oo markii labadoodaasba la isku fiirsho complexity-geeda la fahmo baa markaas sida ugu wanaagsan loo wajahi karaan aaminsanaa marka halkaasaan ku dhaafaya insha Allah waxaan rabaa inaan fursad idin siiyo hadalladiina iyo questionska iyo discussionka inay waqti badan aan u helno laakiin intaas aan intayda kusoo gabagabaynayaa aadna baa u mahadsantihiin aad iyo aad bay umahadsantahay doctor Idil waa sida aadna u kooban una qotada dheer ee lagu soo gudbisay arrinta ku saabsan qurba joogta dabcan qurba joogtu marka laga hadlayo dhowr qof oo dibadda aaday ma aha waxa way bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii 10% oo dibadda aaday marka yani 10 qof oo kasta oo Soomaaliya hal qof dibadda jiro marka dhanka marka laga fiirsho waa population waa tiro aad u badan waay ma aha yani 100 qof iyo 1000 qof iyo 2000 qof ma aha marka khayr iyo sharba waa inala wadaagayaan wixii ku jira wixii dhib ka jira iyo wixii dheef ka jira taas waa hal qodobka kale muhiim waxa waaye diaspora marka laga sheekaynayo ama qurba joogta qodobka muhiimka kale tahay tirada in lagu daro qurba joogtu ma aha yani tiro ahaan kaliya ma ahane waxa dhici karta inay helaan fursado badan waxa laga yaabaa markay xagga joogaan qofka halkan jooga ee lafihiisa raba inuu la badbaado ayaga problem kama haysto xagga xabad kama cabsanayo marka saameyn ka badan tiradooda ay yeelan karaan yani 10% dalka degan saameyntii ay lahaayeen iyo 10% qurbaha degan 10% qurbaha degana ka badanaya midda kale bulshadu haddii inagu aan nahay dad fiican iyo dad dhibaatooyin ay jiraan ayaguna muraayadii tii ugu inoo soo celinayaan adiga adoo foolxun hadaa muraayada isku fiiriso adoo foolxun ku tusaysaa adoo si kale hadaa isku fiirisana sidii kale ku tusaysaa dhinaca kalena diaspora qurba joogtu wixii gudaha ka jiray bay qayb ka mid ah muraayadka yihiin waa dood fiican inaan ka wada qayb galnaan rajaynaynaa waxaan u mahadnaqaynaa doctor Idil because way sahlanta dadka in muxuu ahaa la eeday moogta oo dhaha waxa dhaqan xun weysaan uma faanta laakiin sababteeba ka dambayso oo ku kalifaysa dadka inay shuruur raadsadaan marka su'aashaas jawaabteedu waa inaad laba dhinacaad ka fiirsan mid waxa weeye ownerski dadkii lahaa muxuu warbaahinta ka shaqeynayaan wariyaasha iyo wariyaasha ruuxda halkaas marka waxaa ka soo baxaysa laba arrin mid oo ah suxufiyiintii oo aanan helaynin mushaar adiga marka hadaad mushaar aad ku xisaabtanto aadan haysanin quud baa u baahan tahay Soomaa marka waa meel wax ka keenta iyo ownerski oo dhahayo
idaacad baan ku siiyey microphone baan ku dhiibay caana noqonaysaa no caaniga si iska dhicaa lagu leeyahay marka yani ownerkii oon fahansanayn the culture of journalism yani ethicskii ma fahansanan waxaa laga yaabaa inaysan waxba uga bilowsanayn warbaahinta marka iyadoo uusan fahansanaynba editorial contentkii buu haddana wuxuu kusii darsay dhaqan xumo ah inuusan qofka shaqaalaha u ah xaqa uu ku leeyahay oo mushaar ah inuusan siinin oo uga dhigay yani asxaan uu u samaynayoba asaga qaaditaanka uu qaatay uu dhahayo idaacad mar haddaad haysatid microphone haysatid orodoo suuqa iska dhici moogta marka qofkii dadda waxay ku kalifaysaa meeshii uu wax ka keeni karaba inuu wax ka keeno taasaa marka waxay la gelaysaa inuu ay aadaan muxuu ahaa ragga lacagta bixiya dumar maaha inta badan marka taasna waxay markay isgaargaaraanna jawiga halkaas ka soo baxaya wuxuu noqonayaa arrintaadii koowaad aad ka hadlaysay siyaasadda especially dhanka xun in mar walbo laga hadlo waayo markii qofka uu ka dharagsan yahay mushaarkiisa uusan shaqadiisa ka walwalayn ma beri baa lagu ceyrinaya ma berida baa lagu ceyrinaya naftiisa inuu badbaadadeedan uusan ka walwalayn markaasaa si taama u fikri kartaa dhihi kartaa waqti warkaan isku dheeli tirno maxaa maanta cusub dhanka socialka maxaa maanta ka cusub dhanka siyaasadda maxaa maanta ka cusub dhanka dumarka iyo dhallaanka maxaa maanta ka cusub dhanka isbitaalada iyo caafimaadka markaasaad fiirin kartaa marka technologyga maxaa kasoo baxay social media maxay sheegi kartaa waa isku dheeli tiri kartaa markaas laakiin qofka marka horeba hadduu uusan dhanka hore badbaadadii uusan kasoo dhaafin way adag tahay marka yani wariyaasha labadaas arrin laisku hayo wey inay yes dhinacaan inay shuruurka ay qaadanayo way qaldan tahay laakiin sababta kalifaysa maxay tahay in laisweydiiyaa fiican ownerskana ay noqdaan dad yani loo tababaro xataa haddaa business waa lagu dalaya CNN-taas ninka iskale Ted Turner he's a businessman he won't tell you waxaan ahaa aniga editor waxaan media ba ah wuxuu kule he's a businessman ninka iskale Sky News oo ay hoos imaanayso wax alla wixii Sky Channelska oo Ingiriiska ka soo baxa wuxuu sidoo kale leeyahay News Corporation oo leh half inta newspapers ka soo baxa UK wuxuu leeyahay HarperCollins waa the biggest book publisher in Mareykanka iyo Australia marka yani ninkaas kuwa businessman weeye shaqadiisu ma aha haddii warka ka soo baxaya Sky ay isku dheeli tiran tahay public interest ma tahay waxaas waxa kama jiraan wuxuu ku leeyahay maxaa aniga lacag ii keenaya advertising ku xisaabtamaya advertising kana waxay ku xisaabtamaan dadka ugu badan so warka hadduu yahay war sensational ah dad badanaa daawanayo dhaha oh my god maxaa meeshaan ka dhacay advertising markaas ugu dhijinaya lacag badan ay dalaci karaan waa business way markaas marka taas wax yani saxaafadda Soomaaliyeed ku gaar ah ma aanan ka wadaa laakiin waa inay jiraan yani shuruuc kala celinayo moogtahay wax aan xadgudub ah iyo waxaan xadgudub ahayn meel ka madax bannaan oo ilaalinayso inay jirto way waxa marka sababta aysan colaad usii hurinaynin ama u hurin karin kuwa warbaahinta reer galbeedka taasaa keenayso anaga halkaan waxaa dhacday especially diasporic mediada maadaama luqadda ay ku baxaynaysan ingiriis ahayn sharcigii ingiriiska ka jiray ma dhagaysan karaan maba ka warhayaan soomaaliyana sharcigii weli waa lala daala dhacaya umalayn hadda waxay ugu dhahayeen baarlamaanka waa laga baaskarey laakiin implementation asagana u baahan yahay soomaa hirgelintii baana jirin so waxay ka faa'iidaysanayaan spacekan oo unregulated-ka ah say doonaan u hadli karaan say doonaan ugu dhawaaqi karaan marka yani waxyaabo badan waxaa jira sababaayo shuruurkii business focuskii iyo in ay hadaladii ay qalifsanaadaan social media is a very interesting development meelo badan oo wanaagsan oo kasoo socdan waan arkay hadda dhalinyaradan buugayga labaad waxaan rabaa inaan dhalinyaradan focus ka saaro maadaama ay yihiin kuwa ayag yani ka mid ah dadka aan yani accesska badan loo siinayno Somali media ayagana social media qaabka ay u isticmaalaan shaladaan ka hadlayno waqti Cabdiraxmaan baa joogay iyo waxda social media qaabka ay u isticmaalaan dhalinyarada waxaad moodaa in ay aad uga horumarsan tahay dadka waaweyn qaabka ay u isticmaalayaan marka taasna waxay noqon kartaa waji cusub oo noo horseeda in saxaafadda ay noqoto mid يعني nation building ka qayb qaato wadanka horumarintiisa hadda bad news ka hadlayso mar walba saxaafadda yani daljooga ah ay soo gudbinayaan marba qaraxii warka xun iyo aan diiradda saaraynin dhinacyada kala duwan arrintii yani abow asaga xataa soo hadal qaaday xoogaa way isku dhow yihiin moogta dadkii waxa weeye waxa isbiirbiirsaday dhowr siyaabood oo ay yani mid oo ah warbixintii oo business raadinayso marka waxa arkaysa hadda yani hal mas'uul Facebook bas hadda aragtay صور للسوقلي يوها قف سوى هذا محمد ما أديك سوى هذا قاعد أمدوا يعني هل صور للسوقلي أو حديقة حسوب ولا قفر من الشوك العام هل غيابا أفر بقول قف شن بقول قف إن اللايك سارة
weyn baa wuxuu ka dhacay meel heblaayo markaas waxa la musawirkii wixii markii la soo 2 milyan oo qof maxaa like saarayso marka adigii marka business minded aad tahay waxaad faa'iido ka keeni kartaa midka 2 milyan oo qof soo jiitay ma ka fakaraysid marka ethics-kii iyo waxaan dadka bini'aadamnimadoodii muxuu u dhimayaa iyo aragtideedu ku wanaagsan tahay iyo waxaas waa yani sharciga waddanka keena dawladda markay tahay yani dawlad dhisan institutionskeeda ay markaas ethics-kii ayaa ka hirgeliya hadday heli karaan Murdoch wayna tusi lahaayeen dad jarjarado ama dad qaaqaawan wayna tusi lahaayeen laakiin waxa asluubtii aadaabta ilaalinaya waa sharciga kala dambeynta ay u baahan ay ka qasab ay ku tahay inay xaq dhowraan marka anaga halkan waxa isbiirsaday saxaafadii oo business minded ah iyo wada dawladii oo ahayn dawlad wali yani tayaysan oo dhidabadii wali aasayso marka halkaas waxa imaanaysa in mar walba qaraxii iyo masuuradii xun ay ka soo baxaan waxa soo hadal qaaday in saxaafadda daljooga ah ay u baahan tahay ayada inay standardka ay siiso diasporada moogta diasporada waxaa leedahay marka ayada marka halkaas ka ambaqaadi karto in fact waa the other way round maadaama hadda markii la fiirsho jawiga saxaafadda Soomaaliyeed tayo iyo tiraba waxaa ka badan diasporada hadda fiir universal TV looga daawasho badan yahay miyaa jira TV ka caansan miyaa jira xagee laga leeyahay yes marka fiirso saameynta universal TV leeyahay versus saameynta Astaan TV ama SBC ama isku mid baa may domination kaas marka wuxuu keenayaa inuu midkaan ka saameyn weyn yahay so marka responsibility u baahan in la ilaaliyo standard waxay fuulaysaa diaspora ma fuulaysaa dadka saxaafadda ka joogto right waxa taasi dheer inay ayaga access u leeyihiin environment yani waddankay ku sugan inuu yahay waddan nabdoon oo technology-ga ay horumarsan tahay oo cadaalad ay ka jirto oo peace ay ka jirto oo kala dambeyn ay ka jirto marka way u sahlan tahay inay akhlaaqda ilaaliyaan way u sahlan way ayaga dooranayo inaysan ilaalin whereas halkan qofka jooga doesn't know any better adigu waxaad ogtaad fiir adigu war ma dhalatay 90 ka dambe dhalatay Soomaaliya marka adiga asaaga kala camal oo yani Soomaaliya oo nabad iyo sharci iyo kala dambeyn ka jirta aan ku soo korinin sideeba adiga lagaaga filan karaa inaad sharci iyo kala dambeyn aad ilaalisid laakiin aniga haddaan aan ku soo noolaa waddan ku soo koray oo waxbarashadeedii iyo korriimadeyda baan ku soo qaatay waddan uu ka jiro iskala dambeyn aniga marka haddaanan dooranin inaan ilaaliyo qaladka anigu isaaran yahay Soomaaliya so halkaas ay marka ka imaanaysaa farqiga saxaafadda Soomaaliyeed oo waddanka joogta in ay ku diaspora joogto u faa'iideeyaan arinta social media good image inay yani soo bandhigaan waa waxaan anigu u maleynaa hadda meelahan ka rajo qaba ay tahay marka fiirsada dhaqdhaqaaqa shaqada ay hadda sahro qoran oo kale ay qabanayso Ibrahim Cadow dhalinyaro waa dhalinyaro yani qurbjooga helo dalkii jooga haddana door biday inay ay marba astaan fiican iyo muuqaal fiican ay waddanka ka soo bixiyaan marka waxaan ka rajo qabaa filayaa dhalinyarada noocaas oo kale in ay muxuu ahaa dad kalena ay gubaabiyaan ayadii waxaas barbar socdo su'aashaadaan dambe oo ku saabsan sideebaas warbaahin fiican oo tayaysan loo heli karaa waxa weey waxaan la dhawac waa two sides of the same coin way moogta ilaa saxaafadii markay saxaafad wanaagsan oo tayaysan bulshadii ba audience u ah moogta bulshadii marka wanaag bay u keenaysaa soo bulshadii markii wanaag loo keeno ay la qabsadaan maxaa inay warbaahin wanaagsan inay helaan hadday arkaan ayadii standardka ka sii dhacayso accountable bay ku noqonaysaa moogta wixii waa wax marka iswato marka labadoodan midii soo hormartaba doesn't matter mid uun inay soo hormartaa loo baahan hadda tan waxaan haysanaa waxa weey bulsham society or audience oo aanan accountable ku ahayn warbaahintooda wixii si loogu soo sheego u qaadinayo una fidinayo iyo warbaahintii oo ayadana ama business ka ahaato ama aqoon darraha ka ahaato aan warkii sidii loogu talagalay sameeyay waxa loogu gudbi karaa mid waxa weey dawladda inay institutionskeeda oo hadda wasaaraddan baa wasaaradda warfaafinta yani markii dawladda ay jirto waxyaabaha ay ka qayb qaadan jirtaa waxay tahay in ay tababarka iyo tayeynta warbaahin kasta iyo shaqaalaha u shaqeeyo inkastoo yani kurtiga dawladda wada haayeen laakiin sideedaba yani waxaa shaqo u ah wasaaradda noocaas oo kale anywhere in the world inay ka qayb qaataan
tababarkii iyo muxuu ahaa maaraynta quality-ga muxuu ahaa warbaahin kasta sidoo kale in dadka iskale hadday public media tahayna dowladda mas-uulka ah laakiin hadday private media ay tahay oo gaar loo leeyahayna waxaa mas-uuliyaddaas ay fuulaysaa kuwii iska lahaa inay mar walba ay yacni ka fakeraan tayeynta iyo muxuu ahaa kor u qaadista quality-ga shaqada ay qabanayaan suxufiyiinta marka taas waxay sababaysaa in warkii ay soo saaraan iyo shaqada ay qabanayaan ay noqoto shaqo tayaysan dadkiina markaas waxay usoo baxayaan noqdaan wax quality leh dadka laakiin hadda haddaysan dowladdu weli heerkaas aysan gaarinin ama maxaa warbaahinada gaarka loo leeyahan aysan heerkaas ayagaba ay ama yaysan gaarin ama aysan dan iska yani xil iska saaraynin society-dan ayadan dhankeeda waxaa hadday la socdaan soomaalidana waxaan ku fiicannahay caalamka o dhan baan ku xirannahay hadda gurigaan aan joogo tv-ga markaashida waxaa arkaysaa filin hindiya waxaa arkay oo la turjumay filin hindiya arkay waxaa arkay filin carabiya waxaa arkaysaa turkiya oo turjuman oo intii marka that means soomaalida waa caalamkii ku xiran lana socdo oo arki kara wixii quality ah iyo waxaan quality ahayn ogta marka adiga ruuxaaga kala shaandhayn baad samayn kartaa so haddii marka warbaahinta markaad ku aragtid fal xun ama war si qaab daran loo soo bandhigay hadda waxaad tusaale soo qaadatoo kale warbaahinada muxuu ahayn caalamka in hadduu qarax dhaco ama aysan yacni aysan soo bandhigin meelaha ugu foolxun waxa weeye dhowr sharci bay ilaalinayaan mid waxa weeye xaqa dadka meesha ku geeriyooda ay u leeyihiin privacy-gooda qofka hadduu nool yahay hadduu dhinto privacy-giis xaq buu u leeyahay moogta inaa marka adoon qofkaas aadan ka haysanin ogolaansho wejigiisii especially qofka markuu yacni si dandaraysan u egyahay qof dhintay moogta ma aha muuqaal u baahan in la fidiyo haddana qaabka u dhimanaya qaraxan waxa weeye waa aad qaab u foolxun moogta qof isbitaal yaalo dharkiisa wixiisa qaba ma aha waa yacni lugba halkaas taalo madaxba halkaas yaalo waa wax aad u foolxun weeye uma baahna marka waxaas oo kale in lasoo bandhigo so warbaahinta caalamka marka waxyaabahay sameeyaan waxa weeye inay ka horta waxaa celinayo privacy-ga qofka inay ilaaliyaan midda labaad waxa weeye haddii ay 9 fiidnimo warka uu ka horeeyo carruur baa daawanaysaa lagu xisaabtamaya carruurtaas daawanaysa marka in aanan qalbigooda iyo niyaddooda wax u dhimin maba la ogolo in waxyaabaha noocaasa lasoo bandhigo marka warkii bay sheegayaan isagoo qoraal ah waxayna raacinayaan disclaimer ay dhahayaan imageska ama masuurada ka soo baxaya meeshaas masuuro qorxoon ma ahana marka waxaan waan kaga sii digaynaa inay laakiin waxaan soo bandhigi doonaa qayb ka mid ah 9 wixii ka dambeeyay leeyahay sidaas oo kale marka taasna waa inay ilaaliyaan waa asluubtay ka mid tahay waxa weeye inay ilaaliyaan inaanan dadka moral panic waxa la dhahaa lagu sababin marka dadkii haddii la tuso qaraxyo argagaxsano aad u foolxan ama waxba wixii markii kugu soo noqnoqdaan maskaxdaadii baa waxay la qabsanaysaa maxaa yacni in lagu jiro siyaabo dagaal oo kale camal moogta oo adiga marka waxa waa feejignaanaysaa magaaladii baad ka baqaysaa marka يعني isku socodkii nolosha ay bay habsaaminaysaa oo wax u dhimaysaa marka waxyaabahaas ay ku ilaalinayaan bay soo shaadheeyaan warkii marka waxa lagu keenayaa warkii asagoo asluubsan yani taas marka yani halkan sharcigii baan jiray sharciyadaas kala duwan oo ilaalinaya baa halkan ka jiro soo ayadii sideedii baa lagu soo bandhigayaa moogta marka waxaas oo dhan dawladda horta waa sharciyeynay soo dejiso ay ku meelayso waxaa sidoo kale mas'uuliyad saaran dadka iskale warbaahinta in ay muxuu ahaa shaqaalahooda ay tababaraan oo ay ka dhigaan yani dad kasoo bixi kara shaqadooda iyo society-geeni ayada especially ani diaspora society-ga mar walba xilka saara because ayaga choice-kii ay haystaan moogta dad tiraad wadankii waan rabaa inaan wax ka qabto inaan aad mas-uuliyadnaada iska saaro dantaada keliya aad fiirsatid aqalgal maa marta gurigaaga iska joogo laakiin waxaa loo baahan yahay in adiga yani aad yani responsible haddaad awood u leedahay in aad dadka muujin karto oo tusi kartid dhaqan wanaagga ay bulshada yani door weyn ka qaadan karto taasna marka waxa ka dabadayasho ay ka kasban karaan shacabkii Soomaaliya joogay marka pressure baa markaas la saari karaa social media marka kaalintaas ay ka qaadan kartaa I think that's the biggest kaalin ay qaadan karto arrinta ku saabsan maxay mar walba ugu doodaan fiidiyada markii la xiro in la soo sii daayado la isweydiinayo waxa ma leeyahay adaan weydiinay ayadoo la isweydiinaynin sababtee baa loo xiray dambigeey bay galeen warbaahin kasta waxaa xil ka saaran warbaahinada kaliya ma ahna waa shirkad kasta waxaa xil ka saaran shaqaalaha ayagay u shaqeynayaan in safety-gooda iyo ammaankooda inay meel mariyaan haddii marka shaqo ay qabanayaan awgood loo xiro
waxa mas'uuliyadda ugu horeysa ee tahay shaqaalahaaga inaad badbaadiso soo saartid markaas lala xisaabtamo dawladda marwalba qaabka dhaqaalaha waxay tahay qofka marka hore hal xiro markuu asoo gacanteena ku jiro markaas xisaabtanka ha bilaabmo marka halkaas waxaa ka imaanaya xoogaa conflict of interest ma ka imaanaysa halkaas laakiin warbaahin kasta waa sax horta inay u doodo shaqaalaheeda because haddaad shaqaalahaaga adiga aadan safety-gooda ama amaankooda aadan meelayn karin يعني سبب أي كوش شقيان especially مركز يعني ميل دجال أما تكهل جليسد أما الريمو حساسية كشقين حتى هذا دبت تشوتي أو يعني حسب ما كذا يعني ورياش مش شقيان سين أنا ما BBC وكل عمل ولكن جواه دجال كسر الرمو كل عمل insurance كله بحية أيام كأو safety جو ذي training كلا سينا أي قلب كله بقول أنت اللي بحية وريها عادي قلب ما بحية وحصل مركو حقيقة كتاين قفنا safety ساعد ميل نكتب وقتها سو كل هذه اللي حيرنا قصة بحقوها هرت مركو release كي سنة تقدود مركز حلال حسابته مع سك so that's يعني it's يعني تلعب في عنواعي ومحاينين وحبها هانت أون الإسلام ميل مريو دولة دي الشركة دي يسوي شيء لها أنت أنكو سابسن ugly images كده وصلنا نقرأ يوم ملايريا أو إن especially مدان أو إنتي بركور صور دجاني كود هايان هذا بيرتش السنتهاي مع قلبي جاو تعرف يعني هاي سكندرون يعني أيضا يرجلنا داوتي وقتها ما أنا قلت له بس قلبي وابد داونا يا أنا سأقول قلبي أذكر عاوز وقتها waxaa u maleynaa in ay u baahan inay bartaan yani qaabka editing horta loo sameeyo oo aad kala shaandhaynaysid wixii asluubta ka mid ah iyo waxaan asluubta ka mid ahayn markaas aad soo raacsantahay arrintan qodobkan waa qodob xasaasi ah haddii ay yani haddaadan waxyaabaha xasaasiga aadan u dulqaadan karinin haddar baan ku sii degaynaa marka waxaad ka digaysid ma aha falka xuniya waxaad ka digaysaa waxa weeye qodobka waxaad ka hadlaysid marka haddaa ka hadlayso kala camal ilmo yaroo dhintay oo kala camal oo meel looga tegi karo 2 sano laba maalmood ka bacdi meedkeeda la arko kala camal arrintaas ruuxeeda naxdin ah ilmo yaroo dhintay oo waalidkood ay raadinayeen oo kala 2 maalmood oo meel markaas ka bacdi soo meedkiisa meel gacan qodobkii way ma aha marka image-kii muuqaalkii meesha kuma jiraan marka waxa weey yani waxay ka mid tahay marka waxbarashada ka mid tahay tababar la'aanta ma ogtahay taas marka waxay u soo noqonaysaa in wariyaashii ay fursad u helaan in wax la baro oo siday muxuu ahaa saxaafadii aan shaqadeeda loo qabto ethics-ki waxaas inay bartaan iyaga u baahan kuwa ay u shaqeeyaan ownerska ahna inay baraan violations waxa ka hadashay oo diaspora yani Soomaalidu warbaahinta qurba joogta xadgudubyada ay sameynayaan oo warbaahinada kale oo dhigooda ah laakiin qowmiyadaha kale ka soo jeeda aysan ku dhaqaaqayne sababtay bay u sameeyaan waxa tiraahdo waxaan u maleynaa inay tahay anshaxumo ka imaanaysa ayaga ruuxooda waa macquul in taas qayb ka tahay waxa taas si dheer u maleynaa ama barbar socota in maanta yani wadanka kaliya oo la dhihi karo conflict baa ka jira post conflict يعني situation ku jira laakiin dagaalo ay wali ka dhacdhacayaan oo wali lis haysto group ay is haystaan ay ka jiraan oo active ah contemporary conflict waxa la dhahaa Soomaaliya wadamada kale oo yani dadka qurba joogta ah leh intooda badan waa wadamo daciif ah weak state bay qabaan wadamo soo kacay developing countries baa lagu tilmaamaa laakiin waa wadamo yani basically oo ka jiro waxay marka taas sababaysaa in sharcigii wadankaas ay u tabinayaan uu qabto laakiin anaka halkan communication loogi wali yani implementation lagu sameeyo marka yani sanadahan ugu dambeeyay dhamar dib u qoris mar baarlamaan halkay baarlamaanka soo celinayo ay laga doodo waxa lagu jira maanta dhamoogta laakiin wali wax sharci oo qabanayo xakameeynayo saxaafadda wadanka ka shaqo tagaysa marka ka howlgalaysa ma jiraan so adiga marka haddii aad yani aad ka shaqeynayso meel on governed ahayn meel aan yani sharci ka jirin oo regulated aanan ahayn saa doontada yeelaysaa laakiin haddaa ogtahay meeshaad ka shaqo tagaysa inay tahay meel sharci ka jiro waad is ilaalinaysaa marka taasna door weyn bay ka ciyaaraysaa qaabka u dhaqmaan diasporic mediaska oo kala duwan horta qolooyin kale iyagu ma dhaaman si Soomaalidu way ka daran yihiin horta Soomaalidu ma hadda la qodle waxa inta joogta kale kuwa kale waxa hadda lagu barbar dhigaa oo hadda kuwan oo hindida
ayaga waxa weeye Asian cinema iyo marka Bollywood iyo inta sida halkan ay caan uga tahay hadana halkaas xagga caan uga tahay sidoo kale dadkan oo Ciraaq iyo ka yimid hadda Syria bana soo wehelisa dadka ka yimid ها عربت يعني وحي كلين diasporic media وين كلين لكن أيك وحوي دقن وحلين أو سوتشرين أو شرعي أنشح يسوي كلا دنبين صحافة من عيدا ممكن مركا هدي أي يعني سيريا بربرتو ولي ستاندر كيما بربرين وقت الجزيرة جرتو عربية مع MBC باجر مركا ما دام اللي هي دقن سوتشرين أو أنشح يسوي صحافة اللي إلى علينا ودمدooda mid kamid oo yani wadamo carab mid kamid oo burbura saameyn way kuma yeelanayso asluubtaas laakiin markii uu wuxuu ahaa wadanka la saxaafadaas ay la xiriirayso qurbajoog ay u tahay oo markii horena ahaa markii dawladda jirtay waxay warbaahinta waxay dawladda gacanta ku haysay moogtaa so wax shacabka ay gacanta ku hayeen oo private media la bartay dhaqankaasi culture-kaas muusan jirin dawladda hadda markay burburtayna sharci muxuu ahaa kala ilaalinayo oo yani routine u sameeynayo saxaafadda Soomaaliyeed isku jawiye masku standard ka shaqeeyaan ama private ahaata ama public ahaata ma jiro so meesha waxay iska noqonaysaa marka meel oo saad doontid ka yar camal looga dhaqmaayo moogtaa marka it's really important in sharciga isla socdaan oo wadanka ka jiray markaas qurbajoogta ay ilaalin karaan arrintan ah in khilaafaadka waxa u maleynaa gabadha gadaashaas fadhida carabka u dhufatay oo khilaafaadka in ay weli xasuustii ay ku sii reebeen hadda dhalinyaradiina ay yani marin habaabinayaan and for me that's the biggest problem because waxa arkaysaa dadkii waaweynaa oo civil war-kii yani xasuusta ayakiina waxa weeye xasuustii bay ku sii horinayaan oo yani mar chance ay ku iloobaan ma siinayaan maanta oo dhan markii adiga lagu soo celcelinayo maxaa weeyne geed hebel maxaa tuuladaadii baa waxa isku dilay maxaa reer hebel oo jilibkaaga jifadaadii maanta noo soo hadlaynaa yani wixii aad 91kii 92kii ay ka tagtay ilaa ay hadda niyadaada ku jiraysaa marka marna ma helaysid chance oo qalbigaaga biskoodo oo qabow aad la qabsatid wadanka cusub iyo jawiga cusub oo wixii ay noqdaan wax yani xasuus laga soo taga ah moogta cadaawadii iyo ciilkii aad qabtay baa weli kugu jiraayo carruurtaadina waa ku beeraysaa marka so waxaad noo jooga marka carruur 90 iyo koodii wixii ka dambeeyay dhashay oo aan wadamadaas ku dhashay waxa laga yaabaa Soomaaliya ama inay weligoodba aysan imaanin ama hadda imaadeen samarkii oo kale camal waaridka soo raaceen oo xogaa yani eheladii qaraabada la baranayo ay u imaadeen ma ahan aan wadanka yani aqoon ku noolaansho halkan ay ku nool aanan u lahayn laakiin wuxuu yani si aan caadi ahayn uga warhayaa dagaalada halkan ka dhacay qaabkay u dhaceen sida qabiilkooda ama beeshooda ama familkooda ay u saameysay there's no need for that waxaas yani wax baa loo qabo ma aha so dhalinyaradii markii ay warbaahintiin ay daawanayaan xataa waalidkood ay isku sheegin mar badan University TV aad dhageysanaysa HCTV aad baatirsan u daawanaysa oo aad u jeedo waalidkaaga xiiseynayo adigina markuu waxay noqonaysaa wax adigii xasuus ugu reebo oo khilaafaadkiina adiga lagu sii gudbiyo marka waa waxay noqonaysaa intergenerational conflict markaas generationkiis ay kow saameysay bay kasoo gudbaysaa kuwa aanan wadankii ku dhashanin bay hadda sii saameynaysa waana la sii wadaaya marka so arrintaas waxay maanta arrin la soo afjiro waxyaabaha damida ugu yani biggest problem inay ka mid tahay anigu aan aaminsanahay because hadday hal generation hadday ku eg tahay generationkaas mar unbuu dhimanayaa soo maaha so that means dhalinyaradii hadday isku abuurnayn markaas waxaa imaanaya jiil cusub oo fikrad cusub iyo dhaqan cusub keeni kara moogtaa marka halkaas ay conflict uu noqdo wax yani taariikhdeena qayb ka ah oo haddeer nolosheeda aan qayb ka ahayn so I think waa arrintu waa yani arrin aad muhiim ah waxaad ka hadashay dakhli kale inuu soo galo yani waxaad dhehayso kale dhalay in la sameeyo kale youth tournament oo dhalinyarada la isku keenayo sidaas yani lacaga kale lagu sameyn karo businesskii uu noqdo business aanan muxuu ahaa musawirada iyo dagaalada xunxun kaliya aanan diiradda la saarin saa ugu fikirtid yani saa u dhalisid modello cusub business lagu sameyn karaa ma siyaabo kala duwan lacag iyo income aad u sameyn kartid resourcefulness ay u baahan tahay dadkii waxa weeye waxay rabaan lacag degdeg ahna inay sameeyaan juhdi badan inay geliyaan ma rabaan marka sida ugu fudud lacag ku sameynaysid waxa weeye inaad qarax wax soo duubtid iyo oo aad wixiina markaas aad yani aad soo bandhigtid haddii ay telefishinkaaga ama website-kaaga ay dad badan ku xiran yihiin
halkaas yani advertising baad aad kasoo jiidan kartaa waxyaabaha kale waxay u baahan yihiin fikri iyo juhdi iyo waqti iyo samir bay u baahan yihiin dadka inta badan they don't have time for that marka waa unfortunate laakiin waxaan u malaynaa waxay qayb ka tahay yani degdegaan oo la rabo in lacag lagu sameeyo iyo dadkii u bartay haddeertadaan yani survival mode waxa la dhaho marka ma ku xisaabtamaysid in lacagtaan ama wax inaad aad ka mira dheeftad yani haddaad shaqo qabanayso waxaa laga yaabaa inaad ku xisaabtami kartid oo kale 6 months 9 months ka bacdi baan wax ka dheefaya degdeg baa ku jira dadkii moogta marka halkaas waxaaba ka hoos baxaayaba imaginationkaaga inuu gaaro heer aad u fikri kartid si baahsan oo dhihi kartid meelaha kala duwan oo lacag ka samayn kara maxay tahay moogta taas baa marka meesha ka hoos baxayso marka waxaan u maleynayaa haddaan ka gudubno xaaladda dagaal oo dadkii yani ay at the forefront of wejigooda yani saar markii laga gudbo waxaan u maleynayaa dadkii markaas waxay helayaan chance ay yani siyaabo kala duwan ay u fakaraan hadda iyadoo xaalad dagaal lagu sugan yahay xataa oo post conflict ay tahay xaalad dagaal yani laakiin post conflict condition lagu jiro bay haddana dadkii intaasoo business ay ka jiraan hadda aniga muqdisho waxay ugu dambeysay 2013 sidoo kale kuu sheegay yani within 3-4 sano aan kasoo maqnaa inta hoteelo cusub aan arkay airportkaan oo brand new ah inta businessyo meesha ka jiro walaa cad walaa xisaab walaa arrintan ku saabsan media lawda sharciga UK yani ma qabtaa warbaahinta qurba joogta ah waxaan malaynaa su-aashaada ugu horreysa ahayd on paper wuu qabtaa yani dastuurka ingiriiska markii la fiirinayo dhinaca warbaahinta qodobada oo dhan oo halkaas ku xusan wax alla wixii media house ama ingiriis ha ku baxo ama Chinese ha ku baxo ama Soomaali mar hadduu xarun ku leeyahay ingiriiska uu qabtaa sharcigaas dhibaatada jirtaa waxay tahay dabagalkeeda waxa weeye qolooyinka ilaaliya sharciga waa xafiis la dhaho Ofcom waa Office of Communication bay dhahaan xafiiskaas marka dadka u shaqeeya ingiriisi ku hadlaan waxay dhageysanayaan oo ay daba galaan mar walba kasoo warbixino kasoo saaraan waa idaacadaha ku baxo iyo TV-yada ku ingiriisi channel 4 bay ka hadlaan BBC bay ka hadlaan waxay ka hadlaan Sky bay ka hadlaan intaas maanta u daba galayaan leeyahay eeblo waxaas ugu fiicnaa markii doorashooyinka laga hadlaa qofka baaxad gudub sameey mid ka baaxad si intaas la xisaabtamaya marka jawigaas laakiin waxa horta halkaas ka hoos baxda waxa la wixii aan luqadda ingiriiska warkooda ku soo taabinay أنا مركا بارتان كي قد مركان سمينا وأوتجا ياك presentation أنا سمينا عن كل ده sport media سبب تبان ده بكله سمينا بحب كل هذا أنا كي resources كانوا تمجر هير عن شغالة سينكرنو عيد داس أو يعني اللي مش واحد سومالي كريمة وحكاها لنا وإمس قوم ذيودون الإنجليز كهذينا مش كسر يعني الإنجليز كبس مكتئب الدوكي ولا مش إبادة exactly dadkii gumaystay waxay isu gumaysaneen meesha isugu yimaadeen so sidoo kale marka ay kala dhibaatadaas haysato yani hirgelinta sharciga inay ay qabadsiiyaan warbaahinada yani luqadaha kala duwan hadlaya adag so that's a problem marka u baahan which is why aniga aan diiradda u saaray Soomaaliya hadda markaan soo celcelinayo sharciga Soomaaliya inuu soo baxo waxay anaka fursad noo siinaysaa in markaas aan haysano meel aan u marno moogta aan dhigi karno okay dawladdu way soo saartay aniga dadkina mulkiilayaasha waxaad u baahan tahay sharcigan hirgelintiisa inaad ku dhaqaaqdin marka iyakin waa la hadli karaa waa la xisaabtami karaa waa la dabageli karaa waa la taakulayn karaa haday u baahan yihiin yani wax ka caawiyo dhanka tababarkii hirgelinta sharcigaas sidoo kale iyadoo la ilaalinayo xuquuqda ayaga ay leeyihiin moogta mulkiilaha xuquuq buu leeyahay suxufiga xuquuq buu leeyahay dawladdiina yani mas'uuliyad baa ka saaran inay sharcigeeda ay marka it's easier in la xisaabtamo meelaha kala duwan oo Soomaaliyeed than in muxuu ahaa Ofcom skilling wax la dhahaa jira moogto adiga ileen haddaa wixii aadan sii wadaynin ma aragta uu kaa lumaya moogta waa sida luqadda barta wax kastoo aad baratid wixii haddaadan ku dhex jirin ama research aadan ka samaynaynin ama aad wax ka akhrinaynin ama qoraal aadan ka soo saaraynin aqoontii aad lahayd way sii daciifaysaa mar walba moogta so sidoo kale marka wixii haddaan mar walba new skills aan lagu baraynin oo khibradaada kor loo qaadaynin intii aad taqaanay baaba kaa lumaysa moogta marka waa isku dayna u sheegan ku dhamanto waxaan u baahannahay in at least xataa 3 bilood mar haddii la isku imaado aan consultant yani wax gaar ah noo dhigi karo upskilling dadku u samayn kara haddaan heli karna xataa waxay ahaan wax muhiimba loomaba arkabo this is the problem marka waxaan u baahannahay
in culture kaas la bedelo waana wax ay kulligood ka siman yihiin meeqa inta aan la hadlay oo yani it's countless waxa loo baahay culture kaas marka oo ah waxbarasho la'aanta wariyaha tababar la'aanta wariyaha in aysan ahayn arrin fiican hadda yani qof intuu baxo dhahayo ma jiro moogta halleelay wala dhakhtarnimada waxa u maleynaa ku fiicnaan doono dadka dhageysigooda ku fiicanahay xoogaa wadnahayn waan dhageysan karaa isbitaalkan aan ka soo shaqeeyo qof dhahayo ma jiro hadda tiraahdo qofku qaadanayo mar isbitaal inta u tiraahdo waxaan ka helaa dadka inaan la sheekaysto oo xoogaa wadnahooda dhageysto shaqaalaysiinaysa qof ka yeelay ma le moogta sababteeba u yeelaysa marka qofkan asagoo yani tababar aan u lahayn aqoon u lahayn inuu saxaafada ka shaqeeyo inuu adiga suxuf ku noqdo ويعني وسؤال بان الاسويدي موقتها marka waxa way in muxuu sida loola xisaabtamo looga filayo qofka raba inuu qareen noqdo inuu loo barto qofka raba inuu engineer noqdo inuu engineering school inuu aado soo barto qofka raba inuu dhakhtar noqdo inuu medical school soo sidaas oo kale in lagu xisaabtamo qasab maaha inaad yani saxaafada soo baratid yaa qasab laakiin waa inaad barataa ama tababar ku soo baro ama degree oo score u soo aad laakiin waa inaad barataa qaynuunka iyo siyaabaha loo qabto saxaafada maxay tahay sidee waa warkan loo qoraa maxay yihiin waxa muhiimka loo baahan the what the who the where yani in ethics ina bartid in waxaas oo dhan waa inay dhinac ka soo galaan oo adigii markaa shaqada aad qaban kartid sidaad doontid meesha ku soo gal taas u baahan horta dhaqan ahaan in la hirgeliyo oo yani saxaafada dhan markaas ay ku wareegto tii kuwa qurbi joogka iyo kuwa dirjoogta ahaaba